dugsiyada al irshaad schools. السلام عليكم ومعلى عبد الرشيد سكول كينيا الإرشاد حيصديه أونلاين كها ومعلنكي ساينس كطبعا حيصدها نقادنا أنا وحيصدها فصل كل حاد أيان حيصدنا نقادنا إن شاء الله تعالى مركا أرديتها سود وتصفي عن حيصدها ولا السعودان مركا عشر كي إنه هرو قادنا أيانو سيوضنا هرو وحنو سو قادنا سيمبل ماشينسكا وإنه سو شيء qaybihii simple machines-ka waxaanu si gaar ah u sii sheegnay oo aynu istul taagnay waxa weeyaan lever-iska waanu soo qeexnay what is lever soo kale waxaanu soo sheegnay qaybaha uu lever-ku ka kooban yahay lever-isku ay ka kooban yihiin waxa maanta aynu baranaynaa 3 classes-ka loo qaybiyo lever-iska class 1 ayaynu ka bilaabanaa class 1 lever waxa weeyaan kabaalka nooc class-ka loo yaqaan class 1-ka ama noociisa koowaad is used for lifting heavy weights waxa loo isticmaalaa in culeysyada waaweyn lagu qaado the effort taagta oo loo soo gaabsado is smaller than waxay ka yar tahay the load waxa weey culeyska way ka yar tahay the fulcrum parking-ka af Soomaali ama waxa weey halka uu isku rogayo kabaalku is between waxay dhex taalaa the load waxa weey culeyska and the effort iyo taagta dhexdooda the effort arm waxa weey gacanka effort arm-ka ama dhinaca waxa weey taagta laga apply gareynayo iyo waxa weey fulcrum-ka fogaanta u dhaxaysa is always longer than the load arm marka that is the effort arm and the load arm-kina waka marka inta badan waxa dheer effort arm marka tusaalahani kan waa dhagax la rogayo tan waa sarabad la doonayo in dhagaxa lagu rujiyo kan waa dhagax yar oo ku irkanayo sarabada marka waxaan odhanaa this is load this is fulcrum and this is the effort halkan culeyska xooga kaga qabanayo marka waxa bartamaha yaala waa fulcrum-ka noocaas waxa loo yaqaan class 1 oo fulcrum ku dhexda yaal tusaalayaal hadaynu soo qaadano crowbar sidoo kale siiso and hammer all of this were examples ka class 1 lever sarabada siiso waxa weeyaan mashiinka yar ciyaalku ku ciyaaraan waxa weeyaan ay leex ahaan u isticmaalaan hammerna waa dubihi and class 2 lever hadaynu nimaadno waxa weeyaan class-kan isagana waxa loo isticmaalaa in lagu qaado weights-ka waaweyn the effort-ku is smaller than the load inta badan waxa smaller weeyaan effort-ku taagtu way ka yartahay culeyska load-ka inuu aad u soo gaabsanaa is between wuxuu dhex yaalaa maanta the fulcrum parking-ka and the effort-ka dhexdooda labadaas maanta dhex yaalaa effort arm-ku is always longer than the load arm sidii ka hore isagana effort arm-ka ayaa ka dheer load arm-ka ama qaybta loogu talagalay in culeyska lagu qaado tusaalayaasha class-kan waxa ka mid noqonaya kaariyoonaha wheelbarrow groundnut cracker waxa weeyaan aalada lagu jajabiyo midhaha hinges-ka albaabka etc iyo wixii la mida class 3 hadaynu nimaadno isaguna waxa weeyaan nooca kabaalka noocana waxa uu u bedelaa dhaqaaq yar buu u bedelaa greater movement dhaqaaq weyn effort-ka ayaa ah is always less than the load mar walba effort-ku saddexdaba uu ka yar yahay load-ka tusaale waxa uu ah noocani waxa weeyaan lever-iska noocana waxa tusaale u noqonaya majarafada forearm-keena gacanteena etc iyo wixii la mid ah marka waxaan ka soo booday oo waxa weeyaan class-kan saddexaad ka mid ah waxa dhexda yaala waxa weeyaan maanta effort-ka taagta ayaa dhexda taala marka cashirkeena hadaynu soo ururino kabaalka waxaanu u qaybnay 3 class la yiraahdo class 1 class la yiraahdo class 2 class la yiraahdo class 3 class 1-ka waxa dhexda yaala fulcrum-ka class 2-ga waxa dhexda yaala load-ka ayaa dhexda inoo yaala class 3-gana waxa dhexda inoo yaala effort-ka mid walba tusaalaynu ka bixinay tusaalayaashoodina waa kuwaas idinkoo tusaalayaasha iyo sharaxaaba raacaya waxaad isku dayi doontaan inaad labadan su'aaloodna ka soo
jawaabtaan su-aasha koowaad waa what is lever waa maxay kabaal weeyaan su-aasha labaadna what are the classes of levers maxay yihiin noocyada ama qaybaha loo kala qaybiyo leverska marka xiisadeena maanta halkaa baynu kusoo ururin doonaa ardayay waxaan rajaynayaa inaad fahanteen xiisada saddexda nooc ee kabaalka loo qaybiyo oo aynu waxa weeye mid walba sharaxnay tusaalayaal ka bixinay iyo labadaas su'aalood marka xiisadeena maanta halkaas ayaynu ku soo idlayn doonaa in ku joojin doonaa aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dugsiyada al irshaad schools